Soomaalinimo yeah wallahi billahi waa wax gudaha you know something waxa waaye love story long time waxaad moodaa Soomaalinimada iyo Soomaaliya yeah qof intaad israbteen naftaadu jeclay aad isweydeen oo kale ayay ila tahay waxay ka bilaabataa guushu iyo horumarku wuxuu ka bilaabay circle baa jira leeyahay circle daa'irad yar daa'iradaas waxa waa daa'iradaas naftaada ka bilaabataa daa'irada waxa way sii waasacaysaa wareeg wuu sii waasacaya wuu sii balaaranaya caruurtaada iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada asxaabta dariskaaga wuu sii gaarayaa wuxuu sii gaarayaa community magaalada degan tahay wuxuu sii gaarayaa mujtamaca kul wuu faafayaa marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري وأنا وضع السلامة سلام قالي أو كل إلى بحكدب سودا وهذا يعني اللي سودا وهذا ولاش نشراق أو مركل الفيديو هور لي وضع فيديو مانتا ما نستيا أن رقير أيان حلو حنسير كسوعي الفيديو قماشة ما دام عند ربينا أنا كلا من أو نكلا راجين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيديو هذا وسكن حسعود هداركت فيديو لحسعود هداركت وحواي وكدوين هذا فيديو يده هراء أو كدوين هاي عشر ربي واسك عشر وحلي وحن رها إن شاء الله حرتشينا إلى كرتشينا عشر وحون ندقوا فايدة يعني أساس أوجد وأذكر مركز هذا روتين حاجة كذا عيب حساس وكلا سمي مركز هذا إلى مركز كلا نقطة مع احترامي لتذكر روتين كسمية إن هذا أنا سمي السراهو سكلا شيء كذا نقطة maybe one day المهم سو دوادا أنا كمان تجوي إن بعادي أهين أيا إنوشيرا أو قرح معان أو كل نجس وضع هذا كان نشوفه لكن الحمد لله دواء إلهي ونسيه إذا كان حرجين يمر بتكون سجنتهين دل يدبد به إن تكون معي سنتهين دل هذي اللي راه سومالي لماذا وضن كأنا أفضل بقى سومالي أما تقول هتشوفه أنت ود هتشوفه ودي وحنا نجيبه منا بابا ككو وحا الإسلام ذا أوجي هاي يا إن Soomaaliya ay ka khayraysan tahay dadka jiilkayga ahna ay dawlad la'aan iyo burbur iyo qaxooti iyo guurguur ay indhaha ku kala qaadeen dadka qaarna iyadoo saa loo qaxayo la baaba'san yahay gabar waa xasuusta in fiican iga yar baa waxaan ku yiri qaxi baa saas and she was like why you talking about qaxe she never seen qaxde waxay aragtay uun dhalatay iyadoo wadanka burbursan yahay oo baaba'san yahay oo you know marka qaxi I think qof walba inuu yaqaanay ahayd wax la markii qaxi la dhaw wax laga wado qof walba Soomaali ah ama uu qaxsan yahay ama ma yahel ba ka qaxay ama ba you know de Soomaali malaayiin ba qurbaha joogta marka saas ogeed qax in la wada yaqaano weeyaan Soomaalinimadaas ayaan doonayay inaan wax yar ka dhaho xaqa la isxusuusiyo oo khaladka la iska reebo oo maxaan ku raadayay wanaagga la isfaro diinteena ayaana faraysa waxaan aaminsanahay ama waxay ila tahay dalkeenu wuxuu ka degi la'yahay ha ahaato amar ku dhacsan laakiinse ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku yiri laa yughayyiru ma biqawmin xataa yughayyiru ma bianfusihim sama in allah laa yughayyiru ma biqawmin xataa yughayyiru ma bianfusihim ilaahay qowm ama dad ama qof ma bedelo ilaa asagu isbedelo maaha isbedelku waa inuu annaga naga yimaado soma marka wadankeena ama dadkeena ama si fiican ka si fiican ama dadka dhan waxa haysta waxa waaye tayda ana ananiyo waxa waa ananiya ama ha ahaato dalka iyo Soomaalinimo ka guusis ka si fiican ama si guud ama ha ahaato si gaar shakhsiyan waxa waa qofka haduu anani yahay oo selfish yahay oo aniga oo daniistay yahay meel ma gaarayo meelna ma gaarayo anani ku yahay intan ayaa leh radaatan ana jeexday taas ma waxa ku abuuraysaa ilmihi aad dhashay ay ka dhaxlayaan taas ayaa waxa ka dhaxlaya dadka aad u tahay leaderka iyo madaxda ayaad ku dhaqaysa ku hagaysa taas ayaa waxa ka dhaxlayaan dadka aad u tahay macalinka iyo sheekha ayaa ka dhaxlaya marka ummadii hadii loo wada batay ana iyo ananiya inuu badato meel ma la gaarayo marka ananiyada inaan la dagaalamno oo selfless noqono oo inaan ku darno baa muhiim ah talabaad waxa waa dulmi badan aan inaba caadi ahayn oo la iska xalaaleystay ayaa wadankeena ka socda dulmigaas la iska xalaaleystay qof walbaba wuxuu ka bedeli karo inuu ka bedelo inaan indhaha laga daboolan inaan leeyahay ana maxaa iga galay ana mar haddii aanay u khusaynin ana waxa ma iga galin
waxaad arkaysid waxaa layidhi afkaaga ku bedel dada ku bedeli karin ku bedel gacantaada marka inaad wax la bedelo qof walba mas-uuliyad uu iska saaro inuu wax hagaajiyo it doesn't matter haddaad waddanka gudihiisa joogtid iyo haddaad banaankiisa joogtid iyo ka bilowna gurigaaga ka bilow dhaqankaaga ka bilow asxaabtaada iyo ehelkaaga qaraabadaada iyo ilmahaaga saad ula dhaqmaysid ka bilow ya in aad dulmiga la dagaalantid inaad la dagaalantid waxaad ka bilowdaa inaad u kala cadaalad fashid ilmahaaga inaad leeyahay maxaan kula markaa mid canaanid marka lagu soo kala dacwoodo aadan leeyahay waryaa us ya adoo waxba ogeyn kan qofna dulmi lagu hayo lagu wado lagu socodsiinayo qofna la xigsanayo oo loo eexanayo in la joojiyo si cadaalad ah aan wax walba ku sameeyno daacadnimana aan muujino daacadnimada iyo wanaagga dhaqan waxaa naga noqday in ceeb loo maleeyo in daciifnimo loo maleeyo in loo maleeyo allahumma salli ala sayyidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam laga faa'iideysanayo ilaahi subxaanahu wa tacaala baa kula xisaabtamaya qofkii haddii qofkaaga faa'iideysto wanaag iyo darajo iyo maxaan ku dhahdaa adigana waxaad ka helaysaa ilaa wanaag baad rabtaa wanaag baad wadaay qodobka saddexaad aan ku darayo waxaa waaye in weligaa ay allahay abto cimriga shakhsiyan iyo dowlad ahaan iyo waddan ahaan iyo ummad ahaan ma horey ma u soconayno mana aflaxayna meel lama gaarayno haddii aanan wanaagga dadka kale la rabin haddaanan ku faraxsanayn qofka walaalkeen ah si niyad ah oo daacad ah aadan ugu farxin injaasku gaaray aadan ugu farxin wixii u suurtagalay ya xaasidnimo ayaa la dhahaa haddii aan samayn cagsigeeda waxaa waaye xaasidnimo iyo maxaan ku dhahdaa iyo inaad ka hinaastid niyaddii aadan kala farxin haddaad tirahdid hataa maasha allah iska tirahdid aad niyadda dhahdid waxaas anaan ku rayn lahaa runtii sidai ku heshay iyo siduu ku helay waxay ku heshay garbeeshi I'm sure inaa iska dayn hadduu ilaahay kuu roon yahay xaasidnimada oo si kal iyo laab ah aan qofka kale guushiisa iyo farxaddiisa iyo wanaagiisa aan ugu faraxno ugu sacabatunno ya lilaahi ta kale oon ku daraya waxay ka bilaabataa guushu ya iyo horumarku wuxuu ka bilaabay circle baa jira layidhi circle daa'irad yar daa'iradaas waxaa waye daa'iradaas naftaaday ka bilaabataa daa'irada way sii waasacaysaa ya wareegga wuu sii waasacaya wuu sii ballaaranaya caruurtaada iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada asxaabta dariskaaga wuu sii gaarayaa wuxuu sii gaarayaa communitygii magaalada degan tahay wuxuu sii gaarayaa mujtamacka kul ya wuu faafayaa marka wanaaggii oo dhan ka bilow adiga naftaada ka bilow waxaa ka bilowdaa inaa qof daacad ah oo wanaagga dadka la jecel oo dulmida ilaaliya diida oo cadaalad ka shaqeeya oo maxaan ku idhahdaye farxad ugu farxa qofka wanaagiisa iyo guushiisa iyo injaaskiisa ugu farxa inaa adiga ka bilowdid naftaada inaad samaysid inaad ku barbaarisid ya caruurtaada iyo ehelkaaga inaad khaladka qaadanin inaad xadgudubka iyo qaadanin hadduu ilaahay kuu roon yahay ku socodsiinta inaadan qaadan dulmiga aadan ka aamusanin indhaha aadan ka qabsanin ya inaad wax khalad markaa aragtid aadan dhihin ha wakaasa likii kusii soco aadan dhihin oo tirahdi ya in aad marka ka bilowda naftaada saasay ugu sii gaaraysaa example baa u noqonaysaa ya dacwada ugu fiican waxaa waaye by example ilaahi subxaana wa tacaala hana hagaajiya annagoo dhan qodobka ugu dambeeyo aan kusoo xiray video insha allah waxaa waaye ya xilka iyo mas-uuliyadda iyo blame shifting inaan la sameynin xilka iyo mas-uuliyadda inaan la dhihin okay ya qofkaas kalaa mas-uuliyaddaasi ay tahay qofkaas kalaa laga rabaa inuu sameeyo ani maxaa iga galay haddii adiga waxba kaa gelin oo ani waxba iga gelin oo heblaayo waxba ka gelin yay wax ka galeen qof walbaba marka meeshu ka qabsan kara inuu ka qabsado oodan dadka kale aadan ku mashquulin oodan adigana aadan meel intaad fadhiisatid aadan isbaraaqsanin oodan dhihin okay qofkaas wuxuu waxaas u gaaray ama meeshaas u sameeyo saas u yeelayaa connections buu haystaa caafimaad buu haystaa waalid maxaan ku dhahdaa ladan buu kasoo jeedaa meel heblaayuu joogaa waxaas inaadan isdhihin waxaad haysid iyo meeshaad joogtid aad ka bilaabatid aanad blame garaynin situation aadan blame garaynin dad kale aadan blame garaynin maxaan ku idhahdaay aadan mas-uuliyadda waxa ay waxa la socon la yihiin aadan saarin everything else except from you hadday ahaan lahayd ta adiga kuu gaarka ah ya horumarkaaga kuu gaarka ah iyo hadday ahaan lahayd iyo horumarka community ahaan iyo waddan ahaan ba inaadan dhihin wuxuu waxaas la noqon waaye saasa ugu wacan dowladdu waa saas yeeshay shirkadayga maxaan ku dhahdaa heblaaya saas noqotay waxaas aad dhihin adiga aad mas-uuliyadda isa saartid ya oo actionkii cajaladii iyo shaagina aad dhaqaatisid marka intaasaan insha allahu tacaala iga ahayd in maanta waxa igu soo dhacday
waayo marka qaarkood saa iskaga joogtid annaga qor dadkeena qurbaha ku dee qumuday waxa waaye waxaad ka fikraysaa soomaalinimo alxamdulilah horta ilaahi subxaana watacaala waa ilaahay baa waxaan ugu mahadcelinaynaa inuu waddan iyo danna siiyo waayo dad baa stateless ah oo qurbe iyo kale intay joogaan waddan meelahay ku dhasheen ayay stateless ku yihiin dal aan ku yihiin adduunyada looga aqoonsan inay dal lahayn yaa usoo sii qaxootiyo ku yihiin oo ku joogaan meelaha kale amaba meelahay ku dhasheen oo ka jiil ku dhasheen aysan sheegan karin marka alxamdulilah inaan dal leenahay barwaaqaysan yaa barwaaqaysan markaan leenahay waxaan ujeedaa dhulkeena waa dhul barwaaqaysan of course laakiinse waxaa jira oo dulmi iyo dhibaato iyo balaayo ka socoto waxaa waaye qof walba oo mas-uuliyadda iska riixaya qof walba oo maskiin isu maleeya qof walba oo isku maleeya maxaan ku rahdaa inay balaayo gaar kaligiis haysata dulmiga indhaha ka qarsanaya iyo dad badan oo dulmi ku haya iyo 4 qof oo iyaga wax walbaba dhunta marsanaya ya soomaalinimo ya wallahi billahi waa wax gudaha something waxa waaye love story long time waxaad moodaa soomaalinimada iyo Soomaaliya ya qof intaad israbteen naftaada jeclayd aad isweydeen oo kale ayay ila tahay waayo sida ku socoto ya haddaana wax bedelin waxay noqonaysaa waaban Soomaali ahaan jiray dad badan baa dhahay waaban Soomaali ahaan jiray jiilasheena caruuraheena meelahan aan ku dhalayno waaban Soomaali ahaan jiray noqonaysaa marka qof walbowba geeskaaga wax ka qabo qof walbowba xagee dhinacaaga xageen ka jiidi karaa baabuur markii la riixaayo qof walba 20 qof 10 qof 4 tareerood ka qabato oo riixdo marka gacmo wada jir bay wax ku gooyaan aan gacmaha isqabsano aan wax bedelka ka shaqeyno dal iyo dibadba waan ila jeclahay waa walaasheen Ishraaq oo jikada amaanta ka soo gashay iyo shaarkeygan weyn ya on ku uray aan dhahay ma ku uray laakiin waxaan ka wada miska siiba waan jeclahay waa saabu yahay markaan fiidiyoyaasha joogay markaan waan jeclahay inaan soo gashto hadduu idinka hor yimaadi ka raalli ahaada waan wada salaamaya waan jeclahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh